markaas ku soo galay jeestay gabadhii labada gacmo gadaal inuu saa aaga xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku siiyay markuu ceej dhab ku siiyay banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhahay gabadh waa dhimatay ee xagee geena waxaan ku dhahay meesha geenays geeyon ku dhahay haday dhan waa ku celcelinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhahay waa soo baxnay markaan soo baxnay gabadh wuxuu dhigay nuur salaad meel u dhow buu dhigay gabadh meeshaas uu dhigay horay uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga ma nooleen markay dhimatay marka uu soo ceejiyay gaariga gurigan gadaashiisaan soo marnay wadadan dheer baan soo marnay gabadhii halkaan aan dhignay bartaana arkaysay baan dhignay gabadhii madaxeeda saas buu yiri soo ma aan soo sabarada dhan wala haya soo ma saas bay u tiiray gabadhii wuri xataa qaarkeed dambe halkaas u tiray madaxeeda halkaas u yiri gacanna halkaas soo marnay taayirkii baa madaxayga fuulay halkaas aan ka dhaqaaqnay wadadaan dhan ma marnay labadiina wada labadayna wada socono may gabadha marka hore meed bay ahayd wax dhaqaaqa oo meesha maray oo dada ama baabuur qaarkii wax dhaqaaqa gaari baa aragnay gaariga aniga leerka waa noo dansanaa meesha mugdigaana waxa way gaariga doo leer dansan yahay cidna ma aragto waxay adiga baaray adiga 5 saac meelaha 5 saac محمد هذا واحد نجستي ماشي عن قبلي ماشي عن نجستي وماشي عن قبلي أكو عشان أكو عشان ماشي أكو عشان أقول لها هل كان هو ماشي ميت كده أكو مرة إنك سانقرال عن هاي أو دم بيجينا عن قرنا إنه قبلي أنه ترى الله وهو تكني قبلي وهو عند أبني أساس تاني قبلي أتانو وحامكو سمعني إني إذا نبحريسو أما إن حرتو أما ندعويسو باندي تاني هسا هذا قبل واعجني وعنكو عجنا عمامة الله بدر من عمامك قمرني أتانك قمرني قبل ويسوعد مركو ورمك يسوعد عبارك بعد ويسوق عده عدي سوق عده قبلي وصوبحني عبار نجو شغنو وسودك ناني ولك ما تشن وعنكو يروالو أيو قبلي مرحومتان قبلان نادو ودي تكتو أم مقالة تكتو وين دعويني تمام الحريصة محاطلة قبل wax naf lagu ma jirto si loo aqoonsan gaariga taayirka lugtu ku aadiye mari inaga gabadhan aan ka tagno meesha inuu gabadha dayba dhimatay saaxiib uga dhimatay Allah raxmatay inuu naga kaxay ma gaariga taayir buu raayo waayo gabadhii taayirkii anagu indhaha noo dansan oo hadana gaari wax leer aan shidnin gabadhii taayirkii hora iyo tan dambe israacay Allah raxmadiisa waxaa caawa ilaahay mahadii ah kiiskii baryahan baraha bulshada la dhex wareegayay oo la marinayay oo ahaa gamanta yar oo meydkeeda laga helay duleedka magaalada Boosaaso ciidanka booliiska oo hogaaminayo taliyaha qaybta CID iyo saldhigyada iyo xafiiska xeerlaantu ay si wada u wada baarayeen in maanta uu soo gabagabay baaritaankii ilaahay kiis wixii macluumaad ah iyo kiiska conclusion kiisana aanu bariis wax ku wareejino maxkamadda darajada koowaad gobolka bari si ay go'aan uga soo saarto hadii ilaahay idmo waxaan marka hore mahad u celinayaa ilaahay ka soo koob ciidanka booliiska oo iska xil saaray inay naga gacan siiyaan xafiiska xeelaantu marka hore gacanta ku hayay baaritaanka kiiska caawana si habeenimo iyo taliyaha qaybta hogaaminayo xeelaantu ay la socoto lagu soo gabagabeeyay dhulkii gabadhaas waxyeelada loogu geystay la isxamal maayo kiiskii caawa bari wuxuu sugayaa maxkamad maanta jalsadii hore la dhageystay laakiin gabagabadu bari way hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan halkan uga faa'iideysanaya bulshada ka codsanaya cid kasto waxyeello u geysanayso bulshada inay booliiska gacan ka siiyaan hadii aan booliiska gacan la siin oo dhacdooyinka loo soo sheegin oo lala sheergalin lala wadaagin
وهذا اللي يروح وحلا قبل ما يهدي أدي الدوين وبربا الليل هنا وحافي علينا الدوينها بلوس كنا كعان سياري هاي أبنجا حرلاين تي محكمة لها سياح العدالة اللي جاره أنت أصلا وحنا كعصر يا ود دوينها هذه أضبطلي يوم ما سنت هاي هذه إذا كاو أنا ورا وحنا البلغ هذا إن حرالين هان واجب كنا جاء كان يوحي كلام الله مدبا إنه كجار هذه لها إنه محكمة دون إن شاء الله كجار سوقان عدالة كيوجونا سنة وأنا ما سنتي saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo fadhida waxaan ku salaamay salaanta islaamka waxaan xilligan u qabanaynaa shirka jaraa'id inaan belief yar ka siino bulshada Puntland ama bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Bari dilkii foosha xumaa oo ku dhacay gabadhii marxuumadii Naciimo Cabdi Maxamed oo dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo gacan ka xaqdaran ay dishay gabadhaas oo ay dileen Maxamed Cabdi Faray iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq labada nin oo BLA ahaa oo gaariga ku qaaday oo magaalada kula wareegay meelo ka mid ah tagay kuna dilay qaxootiga meeshiisa qiraal ay ku yihiin meydkeedana dhigay jidka Sodonka iyo saldhiga Nuur Salaad meel u dhaxaysa halkaasna ay gaariga haddana dib ugu marsiiyeen qiraal ay ku yihiin marka ilaahay mahadiis weeye caawa inay qiraal yihiin ee bulshadana u sheegayno cid kasta oo gacan ka geysatay bulshadii gacanta ka geysatay dhammaantood bulshaweynta gobolka Bari cid kasta oo gacan ka geysatay uga mahadcelinaynaa CID-da iyo xeerlaalintana aan aad ugu mahadcelinayo booliiskii ka shaqeeyay oo iyaguna soo qabanayay xogta raadinayay taliye saldhigyadii iyo cid kasta oo ku lug lahayd aan aad ugu mahadcelinayo inay caawa arintaasu annaga ay naga jirto xeerlaalinta iyo maxkamadda jawaabtana aan ka sugayno maxkamadda jawaabtii ka bixin lahayd ilaahay baa soo muujiyay ilaahay baa iftiimiyay ilaahay baa soo bandhigay annagana dadaal baan samaynay aan waqti kasta gelinay waa shaqadayadii shukri cali waajib ay nagu ahayd laakiin ilaahay baa mahad leh haddii qof xilliga intii la dilay cidla intii la dhigay laga tegay aanu xooga saaray bulshadii nala shaqaysay iyo booliiska qaybihiisuba ay gacanta ku soo dhigeen aad baan ugu mahadcelinayaa waa abaalmarintii aan bixinaynay maantii dhaweyto halkaan hadda guulahay ka mid tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dad badani dhiiran doonaan bulshadana boqolkiiba boqol baan u mahadcelinayaa gobolka Bari sida ay noola shaqeeyaan sida ilaamaha amniga ula shaqeeyaan sida xogta noo siiyaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u maleynayaa bulsho isku xiran iyo booliis isku xiran haddii la helo wadanku nabad buu noqonayaa dadkuna isku soo dhawaanaya aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay xeerlaaliyaha iyo tiimkii baarayaasha ahaana gaar baan ugu mahadcelinayaa iyo taliyaha saldhiga bartamaha oo iyaguna si gaar ah baaritaan u mariyay waqti badanna ku bixiyay shaqadii aan u diray aad baan ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ah waxaan leeyahay waa taas oo aynu gala dhigayno bulshadana u shaqeyno bulshadana waxaan leeyahay hal isdajiyo waxaan ku maqanahay cadaalad iyo waxa weeye waqti kastaba inaan gelin doono qof kasta oo dambi gala inaan cadaaladda geyn doono maxkamaddana cadaalad baan ka sugaynaa iyo garsoorka iyaguna waa dhageysteen waqti badan bay ku celceliyeen caawa go'aamadii gaar lahayn iyaga u taala laakiin annaga sugaynaa insha Allah go'aan khayr baan ka sugaynaa joodigii iyo waqtiga aan ku bixinana in naga farxin doonaan baan u maleynaynaa horaan u sheego waxaan idhi caasha bay la mid tahay gabadha tan laakiin ilaahay wuxuu nagu gooleeyay waqti dhow inaan helo caasha waa lagu raagay waqti badan bay qaatay laakiin kuwaan ilaahay waa noo soo fudeeyay aad iyo aad baa mahadsantiin dhamaantiin waan salaam